bismillaahi raxmaani raxiim jimco wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhawaada warka duhurnimo ee reediyo kulmiye qodobada maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ciidamada jaaniiba iyo kuwa jubbaland oo maanta weerar ku qaada saldhig dagaalamayaasha al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanka baarsanguuni ee gobolka jubbada hoose saraakiisha jubbaland oo sheegay in saraakiil ka tirsan al-shabaab ay ku dileen dagaal ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka jubbada hoose xiise dagaal ee u dhexaysa laba maleeshiya beeleed oo maanta ka taagan deegaano ka tirsan gobolka galgaduud banaanbax looga soo horjeedo xukunka lagu riday boqor buurmadow oo maanta ka dhacay magaalada burco guddiga doorashada guddoomiyaha golaha shacabka soomaaliya oo maanta kulan ay kaga hadlayaan hanaanka ay u dhacayso doorashada ku yeelanaya magaalada muqdisho somalilan oo si kulul uga hadashay safar uu taliyaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya uu ku tegay deegaanka lowyacde ee xadka u dhexeeya soomaaliya iyo jabuuti rabshado ka dhacay xukun ay maxkamada fulisay oo ka dhacay dalka isbayn iyo madaxii hore ee sirdoonka maraykanka oo loo doortay xogayaha arrimaha dibadda ee dalkaasi hormuud telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah hormuud telecom u doono internet xawaarihiisu sarreeyo adna qaado hormuud saaxiibkaana u qaad mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa duhur jimcaha taariikhda bisha waxa ay ku abaaran tahay 27 bisha afraad ee abriil sanada 2018 intaad maqasheen qodobada warka duhurkooda ugu waaweyn ay ahaayeen iminka u diyaar garooba ayaga iyo faahfaahsan faadama abukar cabdi iyo anigoo Mariin Cabdulla Xasan ayaa warka duhur idin jeedi doona Cali Ibrahim Cabdullaahi ayaa warkeena maanta soo saaray ku soo dhawaada isaga iyo faahfaahsan ciidamada jaaniib ah iyo kuwa jubbaland ayaa maanta weerar ku qaaday saldhigyo al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanka baarsanguuni ee gobolka jubbada hoose iyadoo saraakiisha jubbalandna ay sheegeen in saraakiil ka tirsan al-shabaab ay ku dileen dagaal ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka jubbada hoose Cali Ibrahim Cabdullaahi ayaa warkan inoo siyaanba qaaday wararka laga helaya gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in ciidamo isugu jira Mareykan, Kenya iyo kuwa Jubbaland ay maanta burburiyeen saldhigyo al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanka baarsanguuni oo qiyaastii 45 kilomitir u jira magaalada Kismaayo ee gobolka jubbada hoose howlgalkan oo horkacayeen ciidamadan cadaanka ayaa labadii maalin ee la soo dhaafay waxay ka wadeen deegaanada dhacaduleedka magaalada Kismaayo kuwaas oo mararka qaar la kulmayay inta ay howlgallada ku jireen weerar kaga yimaanaya al-shabaab weerarkii ugu dambeeyay ciidanka howlgalka wada ayaa lala beegsaday isla markaana waxa uu ka dhacay deegaanka Buloguduud ee gobolka jubbada hoose iyadoona khasaaro uu ka dhashay weerarkaasi wararka qaar ayaa sheegaya in maanta dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka sameynayaan ciidamada Mareykanka, Kenya iyo Jubbaland deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose kaasi oo qorshihiisu uu yahay sida al-shabaab ay ugu saari lahaayeen deegaanada ay kaga arrimiyaan gobolka jubbada hoose meelaha ugu badan ay saddexdan ciidan ee iskaashanaya ay ka fuliyeen ayaa waxaa ka mid ah deegaanka Buloguduud, Cabdalla Biroole iyo tuulooyin duleedka ka ah magaalada Kismaayo ee gobolka jubbada hoose dhinaca kale wararka laga helayo magaalada Doobley ee gobolka jubbada hoose ayaa waxa ay sheegayaan in saraakiisha ciidamada ammaanka Jubbaland ay xaqiijiyeen in 30 dagaalame oo ka tirsan al-shabaab lagu dilay weerar ka dhacay magaaladaasi isla markaana khasaare kale ay gaarsiiyeen sida saraakiisha Jubbaland ay u sheegeen idaacadda kulmiye gobolka jubbada hoose ayaa waxa uu ka mid yahay meelaha inta badan deegaanadooda ay kaga sugan yihiin al-shabaab isla markaana mararka qaarkood dagaalo ay ku dhex maraan ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka xiisad u dhexaysa laba maleeshiya beeleed ayaa maanta waxa ay ka taagan tahay deegaano ka tirsan gobolka galgaduud waryaheena Cabdiqani Cabdullaahi Ibrahim ayaa warkan dhameystiraya warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal culus oo saacadihii la soo dhaafay ka dhacay deegaan la yiraahdo Olol kuna yaala gobolka galgaduud waxaana u dhaxeeya laba maleeshiya beeleed oo wada dega gobolkaasi ee bartamaha Soomaaliya dagaalka ayaa waxaa la tilmaamayaa inuu socday muddo saacado ah kuna dhinteen qaar ka mid ah maleeshiyaadkii dagaalamayay dagaalka ayaa waxaa ku dhintay inta la xaqiijiyay 3 qof waxaana dhaawacmay tiro intaasi ka badan oo ay ku jiraan dad shacab ah oo aan qayb ka ahayn dagaalka dadaal ayaa lagu waramayaa inay wadaan madaxda maamulka Galmudug si loo dhameeyo xiisada dagaal ee u dhaxaysa labada beel ee walaalaha ah dagaalka kadib ayaa hadda wararka waxa ay sheegayaan in ay jirto cabsi xoogan
dadka deegaanka oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa ku waramaya in cabsi xoogan ay ka qabaan kadib dhaqdhaqaaq iyo hub aruursi ay samaynayaan dhinacyada dagaalamay oo deegaanka oo dhan ay ka arkayaan. deegaanka olol ayaa qiyaastii 30 kilomitir waxa uu u jira magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud, waxaana la tilmaamayaa in haddii aan laga hortagin cabsida haatan jirta in dagaalka dib uu bilowdo laga yaabo in ay mar kale dagaalamaan labada maleeshiya beelood isla markaana ay dhaliso in dad badan halkaasi ay ku dhintaan. mahadsanid cabdiqani. banaanbax looga soo horjeedo xukunka lagu riday boqor buurmadow ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada Burco. Idiyaas Cabdi Cali ayaanu arrimahaasi ka wareysanay. waad mahadsantahay arkaxeef oo banaanbax laga soo horjeedo ayaa maanta muddo 2 saacadood ka socday magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer, kaasi oo laga soo horjeedo xukunka shalay ku dhacay boqor Cismaan Maxamuud Aw Buurmadow. banaanbaxaasi waxaa dhigay dadka uu odaygaasi u ahaa oday dhaqameedka isla markaana uu xukumi jiray. waxa ay dadka iskugu soo banaanbaxeen xaafadaha odaygaasi dadkiisu ay degan yihiin ee ku yaala magaalada Burco oo magaalada dhinaca galbeed soo xiga. waxay codsanayeen dadkaasi banaanbaxaya oo la hadalay in boqor Cismaan Maxamuud Aw Buurmadow xukunkaasi laga noqday isla markaana dib loo siiyo xorriyadiisa kadib markii shalay maxkamadda gobolka Maroodijeex ay sano xariga ku xukuntay boqorkaas. Iliyaasow wararba waxay sheegayaan in ciidamada booliiska Soomaaliland ay dadka rasaas ay ku kala eriyeen. wararkaas maxaa ka jira? halkan sida ay noo sheegayaan goobjoogayaal magaalada Burco ku sugan isla xaafadahaasi laga banaanbaxay waxay sheegeen in ciidamada booliisku ay soo gaareen markii banaanbaxyadaasi ay dadku isku soo baxeen oo ay rasaas u adeegsadeen si dadka loo kala kaxeeyo, balse ilaa imika lama soo sheegayo wax khasaare iyo sidoo kale dhimasho oo halkaasi ka dhacay marka laga reebo in dadkii la kala kaxeeyay oo imika mudaharaadadu ay joogsadeen. ilaa hadda ma jiraan mas'uuliyiin ka tirsan Soomaaliland oo ka hadlay arrintan. banaanbaxyada calow intii la xaray boqor Buurmadow waxaa tirada ka dhacay 3 banaanbax oo markii hore la qabtay magaalada Hargeysa lagu xiray. waxaa laga mudaaraaday Ceelaf Weyn iyo sidoo kale degmada Garadag oo boqorkaasi ka soo jeedo iyo kan maanta ka dhacay magaalada Burco. 3 banaanbax ee lagu codsanayo in boqorka xorriyadiisa dib loogu celiyaba ilaa imika kama hadal xukuumadda Soomaaliland iyo laamaha ammaanka ee goboladaasi ka jira. waryaheena Ilyas Cabdi Cali oo Hargeysa jooga ayuu ahaa. dhageystayaal aad ay u mahadsan yahay. markaana Muqdisho ayaan dib ugu soo laabaneynaa. guddiga doorashada ee gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya ayaa maanta kulan ay kaga hadlayaan hanaanka ay u dhaceyso doorashada gudoomiyaha golaha shacabka waxa ay ku yeelanayaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. waryaheena Faaduma Abuukar Cabdi oo warka duhur ila daadinaysa ayaa qodobkan soo koobaysa. waxaa maanta kulan ku yeelanaya magaalada Muqdisho guddiga doorashada gudoomiyaha ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana lagaga hadlayaa sida ay u dhici doonto doorashada iyo habka loo mari doono doorashadaasi. mas-uuliyiinta guddiga doorashada gudoomiyaha golaha shacabka ayaa KNN u sheegay in saacadaha soo aadan ay soo saari doonaan go'aan cad oo ku aadan doorashada. maalinta Isniinta ayaa waxaa la filayaa in doorashada gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ay ka dhici doonto xarunta golaha shacabka. magaalada Muqdisho ayaa haatan waxaa laga dareemayaa loolan adag oo u dhaxeeya 12 musharax oo u taagan xilka hoggaanka gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Somaliland ayaa si kulul uga hadashay safar uu taliyaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee Soomaaliya uu ku tagay deegaanka Looyacadde ee xadka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Djibouti. Axmed Maxamed Ibraahim ayaa warkan inoo akhrinaya. taliyaha laanta socdaalka Soomaaliland Sariye Guuto Maxamed Cismaan Caalin Dayib ayaa waxa uu ka hadlay taliyaha laanta socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya oo dhawaan safar ku tagay magaalada Looyacadde ee xuduudka Soomaaliland iyo Djibouti. waxa uu sheegay taliyaha inuu mas'uulkaasi ka tirsan Soomaaliya aanu soo galin xuduudda Soomaaliland isla markaana dhinaca Djibouti kaliya uu tagay. sidoo kale taliyaha waaxda socdaalka maamulka Soomaaliland ayaa sheegay in xuduudkooda oo ay ku sugan yihiin ciidamadooda iyo mas'uuliyiin ka socda laanta socdaalka Soomaaliland isla markaana uusan iimaan karin mas'uul ka socda dawladda Soomaaliya oo uu sheegay inay kala dhaxayso isjiijid siyaasadeed. wararka qarna saxaabile ama runbay leeyihiin ama waa been. marka warkaas aad sheegaysaan annagu xuduudda annaga joogna ciidamo kale oo socdaalkayna way joogaan, maamulo kale oo aan ciidamo hayna way joogaan, gobolkii baa jooga, booliiskii baa jooga,
immigrationkii baa jooga markaa taliyaha Soomaaliya imaatinkiisa dalan xuduud leenahay baa jirta haddii uu yimid kaftan badan bay naga dhaxeeya ama haddii la yiraahdo waxay naga dhaxeeya wax kala jiidasho siyaasadeed marka dhib ma laha haddii uu yiraahdo macnaha hadduu yiraahdo Soomaaliya tagi inuu tagin baa garab taala sabab uu iman karana ma jiro way wax shaqo kaga xiran iyo wax xiriir uu ku iman lahaa midna ma jirto marka waxa weeyaan hadduu isagu sheegay ama maqal hadduu isagu sheegay iyo haddii cid kala sheegatay warkaas waa been hadalkan ayaa yimid kadib markii taliyaha laanta socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya Masar Koofi iyo mas'uuliyiin ka tirsan laanta socdaalka Djibouti ay kormeer ku tageen laanta socdaalka Djibouti ay ku leedahay magaalada Looyacade axmed aad buu u mahadsan yahay dhegeystayaal warka duhur ee radio kulmiye ay la socotaan akhbaaraadkii dibadda ayaa inoo harsan hase yeeshee markaan duulimaad raaxa leh degdegsiimaya ammaano ayr Djibouti u doono madaxii hore ee sirdoonka Mareykanka ayaa loo doortay xogayaha arrimaha dibadda ee dalkaasi aqalka sare ee baarlamaanka Mareykanka ayaa ansixiyay in madaxii hore ee hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA-da in uu noqdo wasiirka arrimaha dibadda iyaga oo sidaasi ku soo afjarantay dagaal adag oo ansixintiisa ku saabsanayd xisbiga dimuqraadiga ayaa Bumbio ku eedeeyay in uu yahay qof dagaal jecel oo ay dhaamisay muslim naceeb iyo waxyaabo kale waxaa fadhigaani soo xaadiray 57 xubnood waxaana magacaabista ka raali noqday 42 xubnood isaga oo sidaasi ku noqday wasiirka arrimaha dibadda ee labaad ee inta uu xilka hayo madaxweyne Trump Rex Tillerson oo ah ninka uu bedelayo ayaa la eriyay bishii hore iyada oo madaxweynuhu uu ku shaaciyay arintaasi Twitter-ka waxaana markaasi taagneyd kala aragti duwanaansho shakhsi ah oo labada mas'uul u dhextaala ugu dambeyntiina dhegeystayaal rabshado ayaa waxa ay ka dhasheen xukun ay maxkamadu fulisay oo ka dhacay dalka Spain kumanaan ruux ayaa isugu soo baxay dariiqyada dalka Spain kadib markii ay maxkamadu go'aamisay in aysan kufsi geysanin 5 nin oo weerar ku qaaday gabar u soo daabasho tagtay ciyaarta loo yaqaano damaashaad kadib ka cararka dad careysan ayaa isugu soo baxay bartamaha magaalada Spain ee caasimada dalkaasi waa bartamaha magaalada Madrid ee caasimada dalkaasi Spain iyo waliba magaalooyin kale oo dalkaasi Spain ka tirsan 5 nin ayaa lagu xukumay 5 sano oo xabsi ah balse dad badan ayaa u arka in xukunkani uu yahay mid loo naxariistay laakiin gabadha iyo raguba waxa ay sheegeen in ay racfaan ka qaadan karaan xukunka ay maxkamadu fulisay warkii duhurnimo dhegeystayaal oo aad kala socoteen radio kulmiye waa inaga intaa cidii u seego warkaani warar wixii caalam ku soo siyaada waxay si sahlan uga baari karaan barta internetka ciwaankeenu ee radiokulmiye.com dhegeystayaashaana ku sugan beledweyne waxay nagala socon karaan radio wadani galgaduud waxaad naga dhegeysan kartaan radio cadaado sidoo kale gaalkacyo waxaad naga maqlin kartaan radio hayaan mareykankana kale FM caalamka intiisa kalena waxay si live nagala socdaan barteena internetka iyo sidoo kale Facebook ay si live iminkay nagala socdaan iyo live streamka